ra'iisul wasaarihii qaranka oo lagu aaminay dalkaana wuu ku fashilmay doorashadii markii shanta kursi ee banaadiriga faashil waay ra'iisul wasaaraha waa ku fashilmay arrintaana wax waa ka qaban waay muhiimadana waxa waay Cabdikariin musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa loogu talagalay shantan kursi dad uu wato in loo qoro si markii codka biri asay u siiyaan sida miidiyaha iyo baraha bulshada iyo meel baad ka aragteen madaxan meelaha banaadiriga waxay ka gadoodsanayeen boob lagu haayo quraastooda boobkan wuxuu ku saleysan yahay beelaha quraasta ku fadhiyo saadud ogtihiin beel kasto ama markii habraacyadii doorashooyinka ee la dhigtay iyo heshiiskii doorashooyinka wuxuu qeexayaa maxaa leedahay kursi kasto 275 kursi in kursi walba beel Soomaaliyeed ama jufo Soomaaliyeed ay leedahay boobka hadda lagu haayo maxaa leedahay beelaha banaadiriga uu ka duwan yahay boobkii ka socday deegaanadii doorashooyinka ee hadda ka soo dhacday waxa waay boobka hadda beelaha banaadiri lagu haayo kursi beel ay leedahay ayaa laga weecinayaa beel kale aan matalaad lahayn ama kursi lahayn ayaa la siinayaa hadda ka soo qaado sida markii kursiga hub 34 wuxuu ku asteysan yahay qabiilka la yiraahdo beesha reer faqay hadda waxaa la sameeyay oo loo booway beel la yiraahdo reer sheekh oo markii gabadhan la yiraahdo Khadiija al-Maqzumi oo qabo musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed marka boobku waa boob noocaas ah oo waxa lagu xadgudbay habraaci doorashooyinka waxa lagu xadgudbay heshiiskii doorashooyinka waxa soo dhanna waxa ka shaqeynayo waa markii ii sheeg waxa ka shaqeynaa guddiga banaadiriga siid iyo maxaa leedahay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha saa ogtahay wuxuu mas'uul ka yahay doorashada banaadiriga asiga xafiiskiisa ayaa markii ii sheeg ayaa laga wadaa boobkan muhiimadana waxa waay Cabdikariin musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa loogu talagalay shantan kursi dad uu wato in loo qoro si markii codka biri asay u siiyaan waan gartay arintaas markay soo baxday Rooble oo ah ra'iisul wasaaraha dalka doorashooyinka mas'uulka ah ma kala hadasheen ma u sheegteen xafiiskaaga ay fargelin ka socota iyo guddiga doorashooyinka oo beelihii banaadiriga boobaya ma kala fariisateen arintaas saad ogtahay buu markii ra'iisul wasaaraha wuxuu qaabilay hadda ka hor odayaashii dhaqanka beelaha banaadiriga asigoo markii uu isha kala tashtay arrimaha doorashooyinka wuxuuna u sheegay in aysan markaasi go'aan gaareen isku soo laaban doonaan waxa dhacday isku soo laabashadii ra'iisul wasaaraha laga sugaayay maysan dhicin maxaa leedahay cabashooyinkii ra'iisul wasaaraha waa la gaarsiiyay oo xildhibaanadii waa u gudbiyeen as'iido qoraal ah marka wax uu ka qabtay ama markii uu sheeg wax uu falcelin ka sameeyay malahan hadda waxaad aragteen maxaa leedahay markii dooda baad ra'iisul wasaaraha wuxuu sameeyay hakin doorashada in la hakiyay waxaan u aragnay hakintaasi in indhaha markii bulshada Soomaaliyeed laga weecinayo ee beesha caalamka laana waxa aan ka cawanaynay beelaha banaadiriga waxay ka cawanayeen oo ah in beel kale loo xoogaayo ayay ahayd cabashadeena asigana wuxuu ka dhigay oo ku saleeyay hakinta doorashada iyo cabashada soo laabatay in odayaasha ama guddiga wax soo xulaayo ay qaldan yihiin guddiga wax soo xulaayo mar walba way qaldan yihiin oo beelihii kuraasta iska lahaa ma ka imaanayaan marka waxaan u aragnaa ra'iisul wasaaraha markii uu sheeg hakinta uu sameeyay oo ii sheeg maxaa leedahay uu ku hakiyo doorashada inay tahay bulshada Soomaaliyeed inuu ka weeciyo indhaha markii uu sheeg haya iyo markii uu sheeg xaaladaha markii uu sheeg la socoshada markii dhibaatadan taagan inuu ka weecinayo waan gartay marka waana ogtahay guddi markii loo xil saaray markii uu sheeg dhibaato dhacday oo si sax ah markii uu qabtay hawshooda malahan guddigaani waxa waay guddigii dadkii laga cawanayay oo boob waday ayuu guddi nooga dhigay fiiri gudoomiyaha guddiga banaadiriga Sacdiya Boolay iyo xubnaha banaadiriga laga soo magacaabo waa dadkii dhibaatadan iyo boobkan ka shaqeeyay oo mas'uulka ka ahaa eegii ayaa guddi nooga dhigay dadkii dhibaatada waday marka sida xal ku keeni karaan waa su'aasha aan qabnaa annaga aan isweydiinayno waan gartay ra'iisul wasaaraha dhowr guddi ayuu magacaabay intuu xafiiska joogay guddiyo fara badan meelay ku dambeeyeenna ilaa hadda dadku way isweydiinayaan ma la isdhihi karaa marka qayladhaanta iyo buuqa ay sameeyeen beelaha banaadiriga ayuu dadka Soomaaliyeed ka mashquulinaya ra'iisul wasaaruhu oo maalmo kadib doorashada waa la fasaxaya oo waxaad ka cabanayseen horay u socon karaan
aada u weyn hadda kuu sheegayo waa sidaas wuxuu ka weecinayaa indhaha Soomaaliyeed maarkino beesha caalamka iyo in alla intii danaynayso doorashooyinkan ayuu indhahooda ka weecinayaa waxaana maarkino kuu sheegayaa maalmahan dhowba maarkino way soo dejin doonaan sidii lamid ah maarkino sida hadda laga cabanayo ayay usoo dejin doonaan waxaana kuu sheegayaa guddigii maxaliyada ra'iisul wasaaraha magacaabay oo ahayd dadkii cawashada muujinaya inay la xiriiraan lamay soo xiriirin ilaa hadda intaas ay magacaabaya guddiga cid ay soo waceen oo tabashadooda ay dhegaysteen ma lahan haddii taleefanada laga waco oo xiriirkooda la raadiyina taleefanadii ma qabanayaan meel xarun oo loogu aadona oo maarkano ishago cadni ilaa hadda meesha sheegin guddigii uu magacaabay haddii anagii aan xilqaanay oo aan isku dayanay inaan raadino xarumahoodii ku raadinana irdihii ayaan nagala soo xirtay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa meelahan banaadiriga waa la soo dulmay waxaa lagu dulmay xuquuqdoodii lagu dulmay dhibaato badanaa loo geystay hantidoodii la boobay maxaliyada gabdhahoodii la kufsaday guryahoodii la burburiyay ilaa hadda qaar kamid ah xoog lagu haystaa dadkaan beelaha banaadiriga waxaa lagu hoos dulmay calankii Soomaaliyeed qarankoodii lagu hoos dulmay waa dhibaataysan yihiin dhibaatooyin badan ayaa loo geystay maanta marka dadka maarkano dhibaatada ay ka tabanayaan ayuu ra'iisul wasaaraha beel ahaan ka soo jeedaa ra'iisul wasaare shalay waxaan isku qancinaynay dadka dhibaatada loo geystay Mooryaan iyo wax magaratay inay ahaayeen maanta adigoo qof maarkano sheeg oo aqoon leh oo mas'uul qaran ah haddii ay dhacdo inaad maarkano boobkan aad xalaalaysid doorasho ma dhigi karitan boob waaye boobkan inaad xalaalaysid hadday dhacdo waxaanu arkaynaa beesha ra'iisul wasaare adiga ka soo jeedid oo aad maarkano matalaysid magacooda aad ku joogtid meesha ayaga oo dhan ayaa maarkano dhibaatadaas tii horena noo geystay haddana midaan noo geysanayo anaga waa isqancinaynay dadkeeni waxaan ka dhaqaynay dhibaatooyinkii kusoo dhacay waxaan leeyahay waxaan Mooryaan ayaa geysatay laakiin maanta aqoonyahankiini hadduu waxaan sameynayo beesha uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay waxa isla qabtaan waaye ilaahay ha idin qabto umadaanna ilaahay idin ka qabtaan leenahay waan gartay beesha caalamka oo doorashadan ilgooniya ku haysa dhaqaalahana ku bixinaysa ee ku sugan xalane iyo safiirada kale ma xiriir ma la sameyseen waraaqo ma u dirteen ma kala hadasheen arrimahan boobka iyo cadaalad daradan kuraasta beelaha banaadiriga ku socod beesha caalamka warqadaheeni waa u gudbinay inkastoo aysan toos usoo fargelinaynin arrimahan oo dalka Soomaaliya uu yahay dal madax banaan kulay waa cabashooyinkeena waa u gudbinay haddii ay wax ka qabanayaan warqad ahaan waa ugu gudbinay haddii ay sidatan kusii socoto oo ra'iisul wasaaruhu dhagaha ka furaysto cabashooyinka beelaha banaadiriga oo gudoomiyaha inta badan guddiga doorashooyinka banaadiriga laga cabanayo uu bedeli waayo oo guddiga uu kala diri waayo talaabada qaadaysaan maxay tahay dad baa kuraasta hadda ku fadhiya dadkaas markaa wada tashateen talaabada qaadaysaan maxay tahay walaalow horta anaga waxaan nahay beelo maarkano aan hubaysnayn waa dareemi kartaa waxa anaga hadda nagu socdo miskiin ayaa miska la fuula ah marka hadda dawlad qaran Soomaaliyeed anaga hadda waa iska dhicinayna waa la dagaalamayna ma dheheno hadda lama dagaalami karno waxaan sameyn karno ma lahan taladeena ilaaha u dhiibanaynaa waxaan kaloo sameynaynaa sheeg doorasho barbar socto doorashada ay qabteen doorasho ma ahan boobka ay maarkino xalaaleenayaan ayaan maarkino doorashaan qabanaynaa oo cadaalad ah oo anaga dhaxdeena sidii isku dooran jirnaa maarkino isku dooranaynaa ra'iisul wasaarihii qaranka oo lagu aaminay dalkaana wuu ku fashilmay doorashadii maarkino 5 kursi ee banaadiriga faashil waay ra'iisul wasaaraha waa ku fashilmay arrintaana wax waa ka qaban waay waxa wax walba ugu daran oo ku taala maarkino hadda uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha haween imaano waxay dhax fadhiyaan guriga Cabdikariin Xuseen Guuled guddiga hadda maarkino arrinta in xaliyaan loo soo xilsaaray oo dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha waxay dhax fadhiyaan oo xogtooda aan mar walba helayna oo haddana gambasho aan lahayn oo ay dhax fadhiyaan guriga Cabdikariin Xuseen Guuled oo ku qabo marwadan Khadiija al-Makhzumi ee laba kursiga hobsadina afar in loo xoogo marka waa fahmi la'anahay meesha laga wado arrimaha dhan waa gurigaas waa maarkino waxa loo yaqaanaa madaxtooyada kuraasta banaadiriga loo bixiyay teeda kale ra'iisul wasaaraha waxa ka go'an wuxuu wataa musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuled ayuu u campaign gareynaa inuu madaxweyne noqdo marka qof walba Cabdikariin uu wato shakhsi walba Cabdikariin uu wato oo banaadir ah looma fiirinayo kursi ma leeyahay mise ma lahan waxa waa muhiimadda la fiirinayo kaliya tahay
ninkaan cabdikariim ma siinayaa beri sababta maarkinoo isheg arrintan dhan boobka loo sameynayo taas waaye dadka maarkinoo isheg xildhibaanada noqonayn waa qoran yihiin liisay ku qoran yihiin oo hadda waaba maarkinoo isheg waa diyaarsan yihiin cidda xildhibaan noqonaysa ciddaan noqonayn waan gartay weli waxaa dalka madaxweyne ka ah farmaajo oo ah madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday inkastoo muddaxileedkiisii dhammaaday isaga laftiisa waa arkayaa boobka ku socda beelaha banaadiriga fariimo ma u dirteen ma kala hadasheen ma tiraahdeen ra-iisul wasaarahan adigaa magacaabay hawlo loo xil saaray waye in uu arrimahaas hakiyo kala hadal fariin noocaasa ma u dirteen isaga laftigiisa horta madaxweynaha fariinteena wuu haystaa waxaana kuu sheegayaa weriyo waxaan kuu sheegayaa ninkaan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wuuba ka hor imaaday saad aragtay anaga hadda waxaan fariin u direynaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo dadkaan la dulminaayo mas-uuliyad u haayo waxaan leenahay guddoomiye Cumar Finish dadkaan maarkinoo la dulmaayo adiga guddoomiye ah adiga ayaa mas-uuliyad u haysid maanta hoostaada ayaa lagu dulmayaa waxaana ka mid ahayd madashii wadatashiga qaran ee soo saxiixday waxaan kaa codsanaynaa mudane guddoomiye inaad soo faragelisid dhibaatadan lagu haayo dadkaan aad matashid ee aad mas-uul ku tahay anaga hadda waxaa fariintaa u dirayna waxay tahay keliya guddoomiye Cumar Finish oo maarkinoo dadkaan iyo deegaanka hadda maarkinoo doorashada ka dhacaysaba asiga mas-uulka ka ah kana mid ahaa maarkinoo madashii wadatashiga qaran ayaan u diraynaa maarkinoo isheeg fariin iyo baaq inuu maarkinoo arrintaana soo fargeliyo